Ma tahay qof doonaya inuu sameeyo wax lagu magacaabo Facebook cover balse garan lahaa meesha uu ka bilaabi lahaa iyo qaabka uu samayn lahaa? Haddii ay jawaabtaadu tahay haa, maanta muuqaalkan waa kaagii, waana kan kugu talagalay inaad ka ogaato qaabka aad u samayn lahayd. عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلام أصحابتي ملك سدون كاد كجوكتها ومركلة يا مقال عصب وأنا محمد شامع سدو كليك وأنا سوى مومتج maanta waxaan idinla wadaagayaa sida title-ka hore ku soo aragtay ama hordhici hore qaabkan u sameyn lahaa wax lagu magacaabo Facebook cover. Asxaabta aan fahansanayn Facebook cover ayaan in yar u dul istaagi doonaa Facebook cover iyo waxa uu yahay. Ugu horreyntii waxaan soo furan doonaa application-ka Facebook. Marka qof walba wuxuu leeyahay profile. Marka profile-kaaga haddaad tagtid qaybtan u sarreysa ayaa wax lagu magacaabo Facebook cover. kasoo qaad saalaan hadda markaan korkiisa u taabano kadibna aan view profile cover si taabano yani qof walba uu arkaya qaybtan in lagu magacaabo Facebook cover. Marka maanta waxaan la wadaagayaa qaabka loo sameyn lahaa Facebook cover-ka horteena ka muuqda aad arkaysid qaabka loo sameyn lahaa. warantii waxaan isticmaali doonaa hal application-kaas oo lagu magacaabo Pixellab. maanta application wax badan aad ku qabsan karto. haddaad rabto inaad ku samaysatid thumbnail, sidoo kale haddaad rabto inaad ku samaysatid YouTube banner, iyo sidoo kale haddaad rabto Facebook cover, yani waxyaabo badan ayuu ka saacideeyaa inaad ku samaysato application-ka Pixellab. ugu horreyntii waxaan soo furan doonaa application-ka Pixellab. intaynaan soo furan ka hor waxaan la wadaagi doonaa linkiga haddaad ku dhufatid aad ka helisid sawirada aan isticmaali doono dhammaantood. qaabka loo dhulgalaystaan hadda ayaan tusi doonaa. inaad soo dejisato qaababka iyo ikonada aan idinku tusi doono videogan dhexdiisa ama aan isticmaali doono. waxaad soo rogosaa qaybta description-ka, calaamadda yar ee qaybta description-ka ayaa soo rogosaa. kadibna waxaad ku arki doontaa linkigan ka horeeya iyo meeshan ay ku qoran tahay qaababka iyo ikonada. halkan hoose ka degso. marka drive-ka meesha ay ku qoran tahay linkiga bluega ayaan soo taabanana. markaan qaabka u taabano halkan waxaa nooga soo bixi doona sawiradii aan rabnay inaan ku sameyno videogeena maanta oo ku saabsanaa. marka sawirada halkan ayaad ka degsan kartaa. haddaad u baahan tahay sawirada dhammaantood halkan ayaad ka degsan kartaa. adoo taabanaya calaamadda yar. marka halka ayaad ka degsan kartaa dhammaantood haddii aad rabto. ogaatay qaabka loo dhulgaraysto sawirada iyo ikonada isticmaali doono. kaliya waxaa ku dhumay inaan ku tuso wadada aad mari lahayd iyo habka la raaci lahaa. ugu horreyntii waxaan soo furan doonaa application-ka Pixellab. markaan soo furno application-ka Pixellab wajkiisa hore qaybka saas ayuu noogu soo baxayaa. marka waxaan tegaynaa calaamadda delete-ka ay ku qoran tahay si aan tagasiga meesha ku qoran iskaga delete gareyno. marka delete ayaan leenahay kadibna okay ayaan taabanana. intaa markaan tagno waxaan tegaynaa calaamadan iyana sidoo kale calaamadaas ayaan tegaynaa si aan iskaga bedelno wajigan hore. calaamadda markaan tagno waxaan kasii dooranaa meeshan ay ku qoran tahay image size ayaan ka dooranaa. image size markaa ka doorato meesha custom ay ku qoran tahay waxaad aragtaa calaamadda dhan halkan u soo jeedo. marka calaamadda ay korkeeda ayaan taabanana. calaamadda korkeeda markaa taabatay halkan waxaad ku arki doontaa qaabab walba oo loo sameeyo wax, yani hadday noqoto profile picture aad saaratid oo yani square haddaad rabtid, YouTube banner haddaad rabtid, YouTube thumbnail haddaad rabtid, Facebook cover art-na haddaad rabtid halkan ayaad ka helaysaa. marka waxaan taabananaa meesha ay ku qoran tahay Facebook cover art. inagu maanta kan ayaan rabnaa inaan sameyno. marka korkiisa ayaan taabananaa kadibna okay ayaan leenahay. marka qaybtaasa marka inoogu soo baxdo yani waxaan rabnaa inaan iska baabiino background-kan meesha inoo yaala. marka waxaan tegnaa meesha ay ku qoran tahay transparent-ga markaan tagno kadibna waxaan tegi doonaa calaamadda dhexe ayaan tegi doonaa. calaamadda dhexe korkeeda ayaan taabananaa. markaan taabano waxaan ku dhufanaa meesha ay ku qoran tahay import ayaan sii taabananaa. markaad import taabatid waxaa ku khasban tahay inaad soo dejisatid yani waxaa rabtaa inaad soo dejisatid wax lagu magacaabayay sawiradii aan soo dejinay aan soo gelinay YouTube-ka ayaa rabnaa inaad soo dejisatid. marka yani qof walba meesha ugu jira u geliyaan isaga garanaya. marka gallery-gana ayaan gelayaan. gallery-gana ayaan ku dhufananaa. gallery-gana marka ku dhufana kadib calaamaddaas saxda sawirka markaan soo qaadano calaamaddaas saxda inaga waxba karo u garan sidiisa ayaan gelin doonaa. marka si ay meesha inoogu buuxiso waxaan taaban doonaa calaamadda ay ku qoran tahay relative size. marka waan dhammaystiri doonaa si uu meesha inoogu buuxsano. kadibna waxaan soo furan doonaa calaamadda ayaan soo furan doonaa si aan u bin garaysano ama qoful yar u saarano log u gelino. marka aan loo garaynana isna. marka qaabka aan ugu soo baxdo waxaan u baahanahay sawiradii iyo wixii qaabka aan u isticmaali lahayn. marka isna sidoo kale waxaan taaban doonaa meesha ay ku qoran tahay
meeshan ayaan kasoo import garan doonaa, kan ayaan tigta ka qaadan doonaa marka ugu horeysa. marka haddana sidoo kale waxaan ku dhufanaa meesha ay ku qoran tahay import ka markaan ku dhufano waxaan u baahanahay haddana inaan soo qaadano sawirkii aan saari lahayn, yacni matalan oo kale Ilhaan Cumar baan saaraya anigu, marka soo qaadan kartaa hadaa rabtid. marka waxaan leenahay si aan xagga qaybta dambe u geyno meeshan ay ku qoran tahay send back, taas ayaan ku dhufanaa. waad aragtaa qaybta inuu fuushay, marka weli si baan soo weynaya sawirka yar baan sii fogeynanaa. markay qaabka inoogu fuusho haddana waxaan samayn doonaa isla sidoo kale meeshaas ayaan teginaa, kadibna waayadana log baan saari doonaa sawirka. marka waxaa inoo dhiman haddana inaan kusoo darno yacni magacii iyo qoraalkii waxaan rabnay inaan kusoo darno. marka qoraalkii iyo magacii waxaan rabnay inaan kusoo darno, waxaan tagnaa meesha ay ku qoran tahay calaamadaas, kadibna waxaan ka dooranaa plus text markaan soo qaadno sawir textiga ayaan soo qaadanaa, intan ayaan keenanaa, kadibna edit ayaan leenahay, kadibna iska delete gareynana. marka halkan waxaan ku qoranaa magaca aan u baahanahay ayaan ku qoranaa. markaan magaca ku qorno waxaan sameynaynaa farta ayaan ka bedeli doonaa. fartan waxaa laga bedelaa meesha ay ku qoran tahay fontiga. markaan tagno waxaa kasoo dooranaysaa my fonts meesha ku qoran tahay, yacni aniga faray igu jira weeyaan aan kusoo shubtay. haddii aad u baahan tahayna sida haddeer oo kale description-ka ayaad ka degsan kartaa, waxaan kusoo darayaa sawiradii. markay qaabka inoogu soo baxdo marka waxaan tagnaa meeshan si aan background ugu sameynaa aan uga duuna meesha kale. waxaan ku dhufanaa meesha ay ku qoran tahay background, kadibna waxaan furi doonaa calaamadda, kadibna background-ka dambe waxaan ka dhigi doonaa caddaan, inagoo dhinacna u dheereynana, sidoo kale dhinacna u dheereynana. yacni haddeer waxaad aragtaa in waxay isku wada mid noqdeen. ka farta kalarkeeda ayaan bedeli doonaa, waxaan tagnaa meesha ay ku qoran tahay color, kadibna kalarka ayaa waxaan ka dhigi doonaa mid madooba. yacni waad aragtaa haddeerto qaab qurux badan ayay inoo noqotay. marka weli sug background-ka dambe ayaan yar ka yareynaa qaybta midig. marka isna sawirkan yar baan kor u qaadanaa. markay qaybtan sameyno haddana sidoo kale waxaan kusoo daranaa text kale oo yacni qofka biographigiisa qeexaya, yacni qofkan ayaan kusoo dari doonaa. markaan kusoo darno isna sidoo kale waxaan sameyn doonaa farta ayaan ka bedeli doonaa. farta markaan ka bedelno waan yareyn doonaa muuqaalka hadda qaabka inuu noqdo. kadibna waxaan tagnaa b style-ka bold ayaan ka dhiganaa. marka si aan u save gareyno waxaan tagnaa calaamadan ayaan tagnaa. calaamadan marka tagno waxaan kasoo dooranaa save as image ka meesha custom ay ku qoran tahay ayaan ku dhufananaa, kadibna alter ayaan ka dhiganaa si inuu noqdo sawirkana sawir tayo fiican, kadibna save gallery ayaan leenahay. marka sidaas ayuu noogu save gareysmay sawirkeenii. aan galleryga kasoo eegno, yacni waad aragtaa sawirkeenii inuu halkan noogu sameysmay.